maadaama aad tahay gabadh muslimada ma garatay qodobka kale oo kasii fog oodan shuqul ku lahayn waxaa weeye inaadan u gacan qaadi karin ninkaaga ma gacan qaadi kartid oo dariiqaana ma mari kartid ya ma mari kartid marka khiyaaraadkaas waa khiyaaraadka ninka uu haysto khiyaaraadkaas waa khiyaaraadka ninka uu haysto haddii laakiin loo soo wareego muxuu ahaa marka xaaladan oo kale gabadhii ay timaado waxa weeye ayada maxay samaynaysaa ayada waxa ay samaynayso waa maxay gabadhan yeelaysaa waxay yeelaysaa waxaa weeye sida mufasiriintu ay inoo sheegeen oo ay inoogu qeexeen waa 3 xaaladood ee aayaddu ka hadlaysaa xaalad waa xaaladda ay dareemaysa gabadhu ninku inuu kasan taagayo xaaladna waa xaaladda ay iswaafaqi karaan xaaladna waa xaaladda ay tahay inay kala tagaan sidaas weeye yacni haddii ninkii uu kaasan taago maxaad samaynaysaa haddaad heshiisaanna maxaad samaynaysaan haddii aad isla keeni weysaanna maxaad samaynaysaan aayaddu waxay leedahay markaa haddii gabar ay aad dareento ninkani inuu kaasan taagay dariiqa soo socda samee waxaad samaynaysaa xeer jajab ayaad gelaysaa xeer jajab ma aqaana inaad taqaanaan sulxiga waxaa laga wadaa asulxu didda alcadli sulxiga wuxuu kasoo horjeedaa cadaaladda bimacnaa waxaa weeye xaqaaga inaad ka tanaasushid laga yaabo qofka kale xataa inuu kaaga tanaasulo xaqiisa laakiin adiga marka aad samaynaysid qofka sulxiga la imaanaya waxaa weeye qof ka tanaasulaya wixii xaqa uu u lahaa ayuu ka tanaasulayaa isagoo isleh waxaas ku bedelo waxaasoo ah wax isagu uu ku qasban yahay ama uu duruuftu ku qasbayso laakiin aan cadaalad loogu lahayn ninkiibaa wuxuu ku leeyahay waa foolxun tahay foolxumadan waa u adkaysan waa inaan ku furaan rabaa adigu foolxumada ma keenin shuqul kuma lihid gacantaada kuma jirto ya markaasuu foolxumu rabaa inuu kugu furo marka waxaad leedahay xeer jajabaan ka ogolahay ha i furin oo foolxumo haddaa rabtid inaa igu furto waxaan rabaa dariiq kale oon ku wada joogi karno maxaa foolxumada iigu bedeli kartaa foolxumo maadaama aragti inaa igu furto hadalladayda dhan waxaan u samayn doonaa meel aan u celiyo marka aan ka hadlaayo ereyada aan isticmaalayahay erey kasta oo aan isticmaalo ma noqon doono erey anigu aan la imaanayo sulxigana halkan wuxuu ugu jiraa haddaad iga aqbashaan waan idin caddaynayaaye wasulxu khayr markaan la leeyahay gaboodfal wey ma aha sulxi caadi ah waa gaboodfal waa xadgudub ayuu ugu jiraa meeshan sidaasayna mufasiriintoo dhan ku wada fasireen inuu yahay shay xadgudub gabadha ku ah laakiin gabadhu ay laqayso una laqayso duruufa maaragta muxuu ahaa aysan ka bixi karin foolxumadu marka waa ka mid maaqan shalay meeluu maaragtay uu kaa arkee shalay waa kii kugu sasay oo kugu maaragtay rabay maanta wuxuu iska soo jaray gabadhan waa foolxumo marka waxaad ka dareentay inuu kuu sarbeebayo waxa noocaas oo kalea marka waxaad leedaha niyahow kaama rababa meega afka kaama rabo waxyaalaha laysku qurqurxiyo dhan ha ii gadin ma garat bal anaasaan ku heli karo xoogaa dhowr jeer aan ku weydiiye mia marka weydiintiibaa kaaga dartay niyo anaasaan isku qurxinaaye anaa naftayda la tacaalaye bal adugu ha ii gadin ujeedaa yacni noloshayda ha ku darin bal waxyaalaha nafaqaadka ah oo reerku kaa rabo ha iigu soo darin oynanahay wuxuu iska kaa leeyahay walaalay mudda aan wada joogne xoogaa waxaanba fadili lahaa yani adaa ka dareemaya mogta in khaafat min bacliha nushuuzan aw icraadan ka jeesashadaa la macnaynaa mogta marka waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo warhadha niyahow gabar kale ma isaga tuuratid ilaa ilaahay baa kuu baneeyey 3 kale tanna waaba isku daasheene ama si jacaylkaa u qabtay wuu soo gabangaboobe marka gabadhiyaa waxay isdareensiinaysaa iyadoo ku sugan xaalad aan u saamaxaynin ayadu ilaa ayadu ma haysato fursadda ninka oo ah inay ayadu nin kala raaci karto meelo kala aadi karto fursadahaas ma haysata diiniyan laakiin ninku wuxuu haystaa fursad ah inuu marka uu dareemo guriga culays ka dareemo inuu carraga disto isagoon gurigaan burburin oo laftirkiisu dareemaya sababa gurigaanu u sii jiraan ya ayuu wuxuu isku dayayaa inuu guri kala samaysto oo waxay kala tahay marna naftiisii weeye marna nolol kale marka wuxuu leeyahay nolosha kale sida carruurta iyo wada jooga iyo xaaladaas gurigu inuu joogaa u fiican asagu saasuu fadilayaa laftirkiisa laakiin isaga shakhsiyaddiisa markay noqoto gurigan inuu ka guuro oo xaafad kale u wareeguu jeclaan lahaa
gabadhii marka way dareentay gabadha marka waxbaa ciilaaya macruur bay haysataa ma keligeeda meel iska soo saari karin ma duruufo iyo mashaakil khaasa waxbaa jira marka waxay leedahay walaalow reerkaa burburinina orodoo waxaad samaysan lahayd samayso ma garatay orodoo naa kala guurso waa ku ogolahay naa kala orodoo guurso laakiin guriga ha iga burburinin yacni taasi inuu naa kala guursado maba ahanba waxyaalaha oo xeer jajabka laga geli karo laakiin waxaa laga wadaa maalan xuquuqdeeda asaasiga ile taas ninka aslan diin ahaanay ugu bannaan tahay laakiin waxaa jira shay ninka aan diiniyan ugu bannaanayn oo waa maxay inuu gabar kala guursado dabadeedna dayaco gabadhii hore dayacaadda ugu yaraan diintiisa ay u taqaano sida gubashii sida cuntadii sida nafaqadii iyo dharkii iyo wixii la mid ah iyo gurigii ya marka waxyaalahaas wax ka mid a waxay leedahay kaalay guri inaa idejiso oo guri deganaado soo waajibku saaran ma ahayn haa anaa biilka guriga raadsanaya anaa kelida guriga iska bixinaya ma garata okay inaa ibiisho ya soo mas-uuliyadku saaran ma ahayn haa okay mas-uuliyadda biilka waan kaa dhaaf okay inaa guriga iga timaado oo jiif wadaagno soo mas-uuliyadku saaran ma ahayn marxabadaas meesha ka saar adigu ama laba ha saarto ama wixii oo dhan ha saarta waxay rabtaa waxyaalo jira aawadeed oo uun ka mida mid arrin ay danaynayso ay rabtaa ninka inay ka hesho arrimo kalena oo waajib ahaan diiniya ninka lagu lahaana ay meesha ka bixiso idan marka wasulxu khayr maxaa laga wadaa gaboodfalka noocaas oo gabadhan ku dhacaya yaa waxaa la dhiirigelina oo waxaa la leeyahay haddaad adigu gabadh yahay raalli ku noqotay ya dee ninka ma dilaysido ma garaacaysido ma wacdinaysido dariiqaas waa kaa xiran yahe xaqa aad leedahay ma ka tanaasuli kartaa xoolahaaga ya iyo waajibaadkii diiniya lagu saaray ninka isaga mauga tanaasuli kartaa gabar yahay ninka ma aha in lagu wacdinaayo lagula hadlaayo may ninkan furas kaluu haystaa fursaddaanna waa la siiyey adigu marka xaqa aad leedahay diyaar muuta inaad ka tanaasusho mase furiin aad rabtaa mase waxaad rabtaa inaad iska gunuunucdid oo guriga iska dhex joogtid laba mid dooro hadalkan yaa ku leh saaxib alqur'aan ayaa kula hadlaya wuxuu ku leeyahay laba mid dooro ama gunuunac guriga ku joog ya iyo waxa aad dareemaysid oo la gubanaysid iyadoon cid kuu aaba yeelaysa aysan jirin ya iyadoon jacayl lagu haynin iyadoon naxariis lagu haynin ya gurigaaga joog aynan ahayn iska tag oo iska bax oo ninkan waxa weeye maaragtay waxaad tidhaahdaa aniga saa ma u adkaysanaya caddayso afkaaga luqadaada isticmaal haddaada guriga dhaqanaynin iskaga tag haddii kale gunuunacaaga ku joog qodobka saddexaad maxaa waaye ka tanaasul xaqaaga inaad xaqa ka tanaasushaa la dhiirigelinaa marka hadda waxaa la dhiirigelinaa qodobka saddexaad oo la leeyahay xaqa aad leedahay ee ah in lagu biilo oo gogol hesho oo guri hesho oo aad gabadha cusub ee hadda ninku kusoo biirtay la mid noqoto yaa ka tanaasul xaqaas ogolow baa la leeyahay ya haddaad diiddo furiin ayaa lagu siinaya waa in yatafaraqa yuqni allahu kulla min sacati waxa aad ninkan ka raadinaysa dee meelo kale ka raadso isaga waa ka weysee si toosa hadalka gabadha loogu gubay loogu xanuujinayaa runtii ma garat aad baa loogu xanuujinayaa ayaddana usoo laabanayaa marka sabab nasuulkeeda ilaa sabab nasuulkaa wax weyn iiga jiraane sida aad ka aragtaan aayadda ciwaan waxaan uga dhigay casharka ciwaan waxaan uga dhigay dabeecadaha la qariyo ee maxamed nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ka wadaa waaya dabeecadaha la qariyo maxaan ka wadaa aslan qofku marka anaga waxaa nala ka badbadiyaa shakhsiyadda nebi maxamed horta aniga wax yaraan rabaa mar kasta oo nebi maxamed raba inaan sheego arrin inaan hoosta ka xariiqo saxaabay waa maxay nebi maxamed shakhsiyad aniga aan la kulmay maaha mana aqaano waxaan kitaabada ku qoran haddii uusan dhihin ama aysan yani ahayn noloshiisii ahayn dee hadalkayga beriyuu ka yahay shuqulna kuma laha si fiican ii dhegaysta waxaan kitaabada ku qoran ee mufasiriintu soo arooriyeen ee qur'aanka lagu sheegay ee axaadiista lagu sheegay ee kitaabada islaamka iyo madhab kasta ku qoran haddii shakhsiyaddaas nebi maxamed uusan lahayn hadda nebi maxamed hadalkayga ma quseeyo raalli ahaw baan leeniyo isma ana arkin waa naloo kala sheeg ka xumeeyey haddiise waxaan qoran isaga shakhsiyaddiisa laga hadlaayo waxaa jira laba weji oo uu leeyahay nabiga shakhsiyaddiisa oo ah weji la buunbuuniyo iyo weji qaraar oo la qariyo wejiga qaraar oo la qariyo aayaddanaa ka mid a aayaddan laftirkeeda nebi maxamed ay kusoo dagootay aayaddan laftirkeeda
nebi maxamed gurigiisay kusoo degootay mufasiriintoo dhanna sidaasay sheegaan bukhaari iyo muslim iyo kitaabadoo dhan way ku qoran tahay laakiin hoosaa loo dhigaa hadalkeeda waxaa laga dhigaa wax kale inay ka hadlayso waxaa laga dhigaa dad kale inay ka hadlayso caaisha waxay leedahay fiya nazalat aniga igu soo degootay leedahay ibnu kathiir dabari qurtubi axaadiistoo dhan ka fiiri anay igu soo degootay leedahay waxaa jirtay leedahay gabadha la yidhaha sawda binti zamca oo ahayd runtii gabadh marka taariikhdeeda la akrinaayo aad iyo aad aniga aan aad maaragtay taariikhdeeda cajiib ula dhici jiray oo ahayd gabadhii koowaad ee nebigu uu guursaday markay khadiija ka dhimatay khawla binti xakam inay hedaa umalaynaya yaa nabiga u imaanaysa isagoo hoos fiirinayo murugaysan oo khadiija ka dhimatay markaas waxay leedahay yaa rasuulallah ma guursatid markaasuu leeyahay maxaa ii haysaa markaasay leedahay mid dikraa iyo mid garoobaba waa kuwa hayaa gabadha khawlaahi waa gabar umulxakam taas aaday cuthmaan bin madcuun xaaskiisii wey aad bay nabiga u gelin jirtay howlaha noocaas oo kale ah taariikhdeeda marka aad u akhriso waa gabar runtii maaragta cajiib leh marka waa gabadha madaxa u shanshanlaynayso oo dadka qaarkood leeyihiin injir maaha iyo waa injir iyo kidaa oo meelo badan howlaheeda soo gelayso safiye iyo u qalqaalinayso xataa yacni aaday nabiga ugu mashquulsanayd waayahay waxay leedahay marka yaa rasuulallah bal maad gashid hore u socotid marka wuxuu leeyahay maxaa ii haysaa waxay leedahay marka garoob haddaa rabtidna waa kuwa hayaa gabarna waa kuwa hayaa ma garato bal aduu soo soco labadii u kala sheegaysaa marka garoobtu marka waa sawda marka waxay ahayd gabadhii ugu horreysay oo nabigu uu guursado dadka qaarkood waxay leeyihiin da ay ahayd laakiin taariikhdeeda markaa si caadiya u fiirisay da ma ahayn waayo konton iyo hijradu markay ahayd 55 meelahaasay dhimatay nabiguna wuxuu dhintay markii hijradu 11 ahayd isweydii marka 44 sano oo cumrigeeda ah markay nabiga ka dambeysay da'da ay jirtay maalintuu nabigu guursaday oo 10 sanana laga jaro ilaa waa hijradii yaa caaisha wuxuu guursaday sanadii 10aad ee bicfada ayuu sawda guursaday waa sanadkii khadiija dhimatay haddaad marka kor u baxdo imisii jirtay anuu ma garanayo malaha haddii la badbadiyo 40 sano jirtay haddii aad loo badbadiyo la waalo 40 sano jirtay oo ma 45 dhahno oo ma 50 niraahno oo ma 60 niraahno macnaha ma gabadhaasi nabi maxamed ayaa isaga umsoo jiray isagaa ka weynaa soo ma ogidin isagaa ka weynaa 55 sano jiray markuu ay maaragtay muxuu ahaa markuu guursanay ama wada noocaas oo kale ah adigu iska dhe 50 sano iraa haddaan idhaahno 40 sano jiray markii loo waxyooday sanadii 10aadna uu guursaday 50 jir uu ahaa iyadaa ka yareed marka da ahaan iyadaa ka yareed marka hadal waxaa jira badanaa loogu ceeb qariyo sheekada oo laleeyahay da bay ahayd da qof 50 sano sii nooleed agteed dhimatay xilligii mucaawiye iyo kabacdi dhimatay yay waxay ku leeyihiin waxay ahayd da marka da ma ahayne waxaa jiray nicitaan sawda markuu guursaday sawda waxaa laga wariyaa horta inay nabiga ku riyootay iyadoo nin qabo ayay ku riyootay nin saxaabiya oo la hijrooday oo waxay kamid ahayd gabdhihii u hijrooday xabasha markay soo laabteenba ninkeedu wuu dhintay ka horna way ku riyootaa la yidhaahdaa waxaan arkay tiri saas iyo saas iyo saas ya marka ninkeeday u sheegtay wuxuu dhahay haddiiba runaa sheegaysa walee maaragta anigu waa socdaa meesha waa ka socdaa magarat malaha waaba dhimanaya isagaana ku guursanaa hadalla noocaas ayaa laga wariyaa si kastaba sawda wuu guursaday sawda markuu guursadana wuxuu la guursaday isla waqti yar kabacdi caaisha uu guursaday haddaba su-aasha meesha waxaa timid caaisha oo gabar yar ah iyo sawda oo naag weyn ah dadku waxa ay leeyihiin marka waxaa waaye oo ay dareemayaan markay sawda da weyn siinayaan sawda caaisha ka la joogta marka caaisha iyo sawda marka la isu fiiriyo waa gabar iyo ayeedeed ama waa gabar iyo hooyadeed weliba waxaa la yidhahdaa sawda waxay ahayd gabar cajiib badanoo way cayaarsii jirtay caaisho way cayaarsii jirtay qisooyin dariif oo qosol ayaa lasoo wariyaa maalmaha ka mid ahay gabadhii la dhihi jira caaisha waxay u keentay nabiga raashin ay soo samaysay ayadii sawday u keentay waa iska dhowciliyar marka raashinkii markii soo samaysay nabigu waa cunay raashinkii laakiin sawdi waxay tiri maraba raashinkaaga maraba ciyaar
way ku ciyaaraysa markaas raashinka inta soo qaatay ay muxuu ahaa ay wejiga uga daadis nabiguna sawda madaxa inta soo qabto digsiga afka u geliyay iyo saxan miya mise xeero waxaad tidhaahdid oo madaxa u geliyay saasaa marka macnaha calashaan waxay ahayd gabar yaroo iska cayaarsiiso oo iska boodboodsay ahayd markay labadoodii nolosha ay yihiin oo labadoodii nolosha ku jiraan isla markaas nabiga waxaa ka muuqata inuu maaragtay uu caaisho uu maskaxdeedii because waa qof weyn moogta waxay aragtaa caaisho le inuu ku mashquulsan yahay caaisho muddo ka bacdi qiimayn ay samaysay waxay dareentay nabigu inuu furi rabo waxaa jira axaadiis la soo arooriyo oo ibnu kathiirku ay xataa soo aroorinayaan oo aan hadda ka hor ku ooyey anoo maaragtay waa hore runtii 12 sano ka hor waa ku calolxumooday qisada macnaha yani waxaan ugu calolxumooday dareen igu jiray waagaas ma garanayo maxay ahayd waxa ay sooda samaynaysay iyo waxa nabiga aan u diidanaa inuu sameeyo maanta waa dhihi karaa runtii waan cabiri karaa laakiin waagaas aada ugu calolxumooday waa ku calolxumooday bas waayo shakhsiyadda nabiga aan u diidanaa saas inuu sameeyo gabadhaas maxay samaysay waxay maqashay muxuu ahaa in nabigii furaayo cabaas la yidhaha waraaqu usoo dhiibay bas waa macnaha waa furaa camal sheeka fariina usoo diray ma furin laakiin fariina usoo diray inuu furaayo way oraday jidkay uga hortagtay ninkii way maaragtay waa loo sheegay meeshii ku oyso waxay tiri yaa rasuulallah hay furin ay tiri hay furin way barisay yaa rasuulallah duruufteedii uga sheekaysay say tahay ka hadashay xaaladeedii nafs ahaan u sharaxday waxay tiri waa kuu jeedaa inaadan i rabin maaragtay muxuu ahaa i furin habeenkaygii qaado hadday dhib kugu hayso inaad gurigayga timaadid maaragta muxuu ahaa iska kaydaa waxaan siiyey caaisho ayaan siiyey because caaishaa nolosha kala dhexaysaa marka way aragtay inuu waxay leedahay caaisho ha ku wareeg aniga waxaan rabaa oo keliya inaan kuu ahaado min xaasaskaaga jannada ayaan rajaynaa inaan kuu noqdo de waa qof dumar oo nabigu madaxa u saaran yahay ma garat markii saas ay tanaasulkaas markay samaysay oo ah habeenkaygii iyo jiifkaygii waxaygii maalintaydii caaishaan ku wareejiyey markay tiri ayaa maaragta muxuu ahaa uu nabigu wuxuu yidhi okay waa kaa daaya marka furiinkii waan kaa daayay marka caaisha maxay dhihi jirtay anigay sawday nagu soo degootay aayaddu qise dheer waaye anigay sawday nagu soo degootay oo waa maxay wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan qofka laga hadla waa nabi maxamed marka haddii haweenaydu waa xukun caam ah laakiin hadda aayaddii hore iyo aayaddan sababta ay isugu ekaa waayeen aan rabaa inaan idin fahamsiiyo aayaddii hore ee ninka qaabka uu ula tacaamulayo haweenayda lagu tusay oo ah qaab aad iyo aad foolxumo uga muuqato inuu dilo sariirta uga tago waxaas laakiin marka ay timid shakhsiyadda nebi maxamed ay timid sheekadii o dhan meesha waa ka baxday waxay u baxday in aayad qur'aana la soo dejiyo oo dabadeedna falkaas tabriir ama marmarsiiyo loo sameeyo taasoo marka ay noqotay inay saamayn ku yeelato ummadda islaamka oo dhan yacni arrintii sawda ee nebi maxamed naftiisa uu kugu talagalay waxay noqotay inay noqoto wa in imra'atu qof kasta oo dumar ah xaaladdan inay maantay mucaanaadkaas iyo dhibaatadaas inay haysto gabar kasta oo muslimada maalintaas dhacdadii sawda ay isku badbaadinaysay in maaragta muxuu ahaa ay ku dhacday saa daraaddeed abu daawuud altayaalisiy waxa uu ka warinayaa cabdullaahi bni cabbaas wuxuu leeyahay khashiyat sawda an yutalliqaha rasuul llahi sal allahu alay wasalam sawda waxay ka baqday inuu nabigu furo faqaalad waxay tiri yaa rasuula laa tutalliqnii rasuulka allahow ha i furin wajcal yawmii licaaisha maalintaydii iska sii caaisha fafacala sidaasuu sameeyey wanazalat waxaa soo degootay hadihi alaaya aayadan wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuzan qaala ibnu cabbaas fama stalaxa calayhi min shayin fahuwa jaa'iz wuxuu cabdullahi ibnu cabbaas ku fasiray war wax walboo xeerjajabaho ay isla samaystaan labadoodu waa jaa'is waxyaalaha marka cajiib kale waxaa ka mid ah timaalu lyataama cismatun lilaraamili ayaa nabiga lagu ammaani jiray gargaarihii agoonta iyo garabsiiyihii garoobada waxaa la isweydiinla markaa yacni muuqaalka nabiga lagaa siinaayo waxaa weeye mar walba inuu gabdhaha garoobada u guursan jiray inuu xanaaneeyo laakiin hadda
si toos waxaad u arkaysaa inaysan arrintu sidaa ahayn ee ay cagsigeeda ahayd yacni arrin kale inay jirto inuu nabigu u guursan jiray gabdhaha garoobada haddii xanaano ay tahay iyo naxariis ay tahay waxaa fahmi kartaa oo isweydiin kartaa gabadhii noloshu kaala dhexaysay ya yacni waa rasuulkii ilaahay ee ku baryootamaysa haddaad i nacday oo aadan ii soo hoyanaynin ha ifurin uun kama bixi karo waayo ciyaalay haysatay xitaa fiiri waxaa jirta qisas la soo arooriyay oo gabadhaasu inay nabiga kaga cudur daaratay ah guurka maxay tiri waxay tiri rasuulullah carruuraan leeyahay ilaa 5 meelahaas inay sheegtaa u malaynaya waxay tiri carruuraan leeyahay waxaan ka baqaayay tiri madaxa inay kaaga qayliyaan yani carruurta aan haysto inay madaxa kaaga qayliyaan oo hurdada kaa kiciyaan yaan ka baqaaya marka wuu u bareeray yani iyadu ma aysan soo doonan isaga kuma soo degdegin laakiin isagaa doortay isagaa kusoo degdegay isagaa gurigeedii kala soo wareegay isagaa maaragtay u gogol galay iyaduna way cajiibtay inay maanta markaa dhowr sano ka bacdi dee waa fahmi kartaa inta la isqabo bal adigu waxay kuleeyihiin way duqowday kuleeyihiin goormay duqowday goormo ayay duqowday haddii sanadii 10aad iyo wixii ka dambeeyey uu guursaday waxa dhanoo nabiga dhan noloshiisa ka dambeeyan ay ahayd sanado yaroo kooban maxay tahay waxa duqowga la sheegaya goormay duqowbaysaa yani waxaasoo dhan waa ceeb qarin moogta sababtu marka maxay tahay nabigu uu u guursanayo gabdhaha garoobada gabar aadan u quuri karin galma inaad la samaysa maahane gurigeeda inaadan tegi karin ma dareemaysaa yacni naxariistii oo dhan meesha inay ka maqan tahay guurku galma miya waa su-aal guurku ma galma guriga ninku inuu yimaado gurigu ninku inuu yimaado oo soo booqdo oo qofka noloshu kala dhaxays uu u yimaado oo la joogo oo la jiifto macnaheedu ma inuu la seexdaa halkan maxaa kaaga muuqata shakhsiyadda la qarinayo nabi maxamed nala kaga qariyo oo waa maxay gabadhan wuxuu calaaqada uu la leeyahay waxaa waaye calaaqo qof insaana lala yeesha calaaqada ugu liidata waaye oo waa maxay naahoy naagtan yartaa baan rabaa inaan la ciyaaro adigana kulama ciyaari karo laba mid dooro ama hoos fiiri waa waxa aad dareemaysa qarso waa ujeedaa inaan kaa tegay kaa jeestee oo aynan ahayn xaqa aad leedahay ka tanaasul hadda marka nebi maxamed ayaa waxa uu horseedayaa in gabadha miskiintaa xaqeeda ay ka tanaasusho bal marka qof kalaa waxaa rabtaa inaa maantay tiraahdo waa i dayacday dhibaata ay geysatay islaamku ima dayicin diintu aniga xaqayga way ilaalisay ninkan isagaa xaqayga ku tumanaya aniga waxaan rabaa inaa idin tuso wax aa shakhsiyaddii nebi maxamed kala adihiin yaa rabtaan wiil soomaaliyeed oo muslina inaa ka raadisaan inaa isfahamtaana fiican moogta midda kale laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana nabiga ku dayashaa ku sugan war marka nabigu caaisha waxay leedahay iyo kitaabadoo dhan nabigu 9 xaasuu qabay 8 u qaybi jiray bas 8 u qaybi jiray ma fahamtay sawdo banaankaa loo tuuray wax qiimaynaya male wax u soo hoyanaya male wax soo salaamaya male wax xaqu hay leedahay male aakhira sugato wax la yidhaha wey aakhiray suganay kalgacaltooyo ma haysato naxariis ma haysato mujeedaa ma garatay waxaa shakhsigan waa shakhsiyaddii ay rumaysay saasay leedahay qawla way ku raaceen wayna ku rumeeyeenay leedahay waa garoob iyo gabar ku rumeeyey oo ku raacsanay leedahay ee guurso hadda saanay dadkan kugu soo galeen haddii marka ruuxdii nabiga iyo jacaylkii nabigu uu keeni waayey inuu hab siiyo xaaskiisa ee uu galmo uun ku fakeray iyo gabadha yartaa habeenkeeda sii haddaa rabti inaan kusii qabo ma qof marka waxaa ka sugaysaa soomaaliyada ka sugaysaa waxaan rabaa inaad dareentaan tacadiga iyo xadgudubka mar walba aa ka aragtaan ragga soomaalida diinta xiriir fiican inay la leedahay maalan marka ninku reer baadiyaha sameeya oo reer magaalkaa sameeya marka ninku xaaska hore uu guursado oo xaaska hore uu naag labaad la guursado habeenadoodoo dhan wuu dayacaa jiifkeeduu dayacaa xuquuqdeeduu dayacaa booqashaduu dayacaa gurigii horeba gurigiisii ma aha wuu dhibadhibeeyaa ifur ilaa ay tiraahdo ma garatay
ifur ilaa ay tiraahdo hadda marka sulxiga xataa laga hadlaayo waxyaalaha ugu waaweyn waa maxay waa nafaqada daa oo waajib ah waa aan ku dayaco waa dharka daa oo waajib ah waa aan ku dayaco waa xataa haddaad ikraahsato khulci la imaaw khulci ma taqaanaan waa maharkaagii aan shalay ku siiyey ii soo celi oo see lagugu soo celinayaa mastaxlaltum bilfuruuj ma waanan ku sheegin awal soo kuma adnaan dhihin farjigaa lagu xalaalaystay ma farjigiyaa soo celinaya haddana waxaaniyo wixii miyaa dib u soo celinay ma gabadha wixeediyaa dib u soo celin intaa galmo soo samayso o dhan ma soo celinaysaa waa maxay markaan kala tegayno wixii o dhan ii soo celi lacagtii ii soo celi maxay ilaa ay nooshahay mi waxa yarka lagu haysto maxay taa waxa ii soo bima staxlaltum bihi lfuruuj aa ku magacaawdeen waa xadiis laakiin hadhow waxaa leeyahay haddaad inaa lagu furo u soo celi maharkiisii iyo wixiisii u soo celi xoolo kale hadiyadihii uu ku siiyo o dhan soo celi arxandarida fiiri waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun yacni haddii adigu uu rabo waa ka biisanaya laakiin isagu waa maaragta muxuu ahaa iyada waa khasaarinaya iyada markay dulun dareemayso bal fiiri markay dulun dareemayso oo cadaalad darre dareemayso oo naxariis la'aan ay dareemayso waa wacdi aan meesha ku oolin waxa weeye waa waano aan meesha joogin waa gogol maaragta carar aan meesha joogin waa aftuur iyo aflagaado aan loo baahnayn waa dil iyo gacan ka hadal aan loo baahnayn maxaa arrintan muxuu ahaa qofku waa qof adoo kala waadna ishaysaane maxaa wacdiga adiga meesha keenay maxaa gacan ka hadalkay maa caadiyan u wada hadashaan oo dhibaato idinka dhexaysa maa ka wada hadashaan maa dhegaysatid hadhow waxay ku leeyihiin maxay tahay xalka adinku aa gabadha u haysaan war annaga xal aan hayno intaan bala gaarin horta marka hore xal ma haysaa meesha lagaa kaxaynayo oo lagugu haysto xal ma ku haysaa waxaan dhegaysanayey wadaadale maalin dhoweed yacni suuratu nisaa waxa weeye wax badanaa waa la qarribay hadda waxaan ku khasbanaa inaan dib dambe u akhrino bal kaalee dib u akhriya suuratu nisaa dib u soo akhriya ayada dhan intaan soo mar oo dhan soo akhriya carbal meel qalad aan ka sheegay soo sheega iyadaa suuraddu mushkiladda dumarka iyadaa xambaarsan ma garata waxa aan doonaynaana waa nascul qadaasa waa inaan naska ka siibno qadaasada la huwinayo si dulunka iyo xadgudubka ku jira loo arko wa ilaa haddii kale weligeen dee wax in ninku dulmiyo kugu istaago yaa u moodaa ilaah inaad addoon ugu tahay warmaye waa xadgudub aad aqbashay oo laguu diineeyey dabadeedna lagu yidhi waa lagu cadaaba aakhiro haddaadan aqbalin dulunkan war adeegsa caqligaaga idan marka waxyaalaha cajiib kale waxaa weeye oo aan rabo inaan fahamno waxaan aragnaa maalin kasta guryo burburaya guryahan burburaya horta yaa mas-uulka ah mataqaanaa sheeko qosolaa raba maanta inaan idiin sheego gabdhahan rabaa si fiican aan uga xanaajiyo moogta gabdhuhu iyagaa mas-uulka ah guryaha burbura horta saas moogtiin inta badan ayagaa mas-uulka ah maxay mas-uul uga yihiin mataqaanaa xadgudubkay diidan yihiin ee xadgudubku waa diini maxaa u diidantihiin inaan runta isu sheegnaa fiican moogta tusaalehaan guryuhu maxay u burburaan guryuhu waxay u burburaan inta nabigu sawde ku sameeyey intaas ka badan miyuu ninku kugu sameeyaa weliba nimanka soomaalidu intaas badan ma sameeyaan xoogaa yar waa ka roon yihiin ya waa laga dareemaa inay gabadha ka dul doorsadeen laakiin 90% waxaan dhihi karnaa reerka way ka warhayaan haba dulmiyaan dhibaato u geystaan midda kale inta badan magacan qaadaan xitaa qaarkood wiiw iyo waawda tirada badan ee diintu noo sheegto oo hala garaaca ah ragga qaarkood saa ma sameeyaan laakiin abateedkooda wuxuu u furayaan naa kala raadsi iyo midaan xoogaa ku dhibe iyo ku adkee iyo bal xeer jajabka kula gasho iyo waa barnaamijka yarka oo diiniga oo hadda meesha aan ku arkayno wey maaha in maaragta muxuu ahaa ay tahay wax oo ii sheegay yacni ay tahay wax oo qariib ah tusaalahaan ninkii ayaa gabadhii xoogaa ka jeesanaya markuu ka jeesto maxay gabadhu dareemaysaa waxay dareemaysaa inuu ka meel kale u socdo gabadha way xanaaqay marka walaal xanaaq ma aha inaa xanaaqdo ma aha gabar muslimada ha tahay ma aha inaa xanaaqdo gabar muslimada ha tahay haddii ninku gabar kala guursado adoo gabar muslimada ah ma aha inaa qayliso ma garatay waa inaa aqbashaa waa inaa xeer jajab la timaadaa hadduu waddan kale gabar kale ku guursado hadduu dalkii ku laabto xoogaa
wax aruursado cayrtiisa oo naa kala samaysto waxaan waa wax iska caadiya waa shay diiniya shayga ninkan waxa uu samaynayo waa shay diiniya ma garat adiga unbaa u mooda adiga waxaa ku wada dabeecadda insaaniyadda ee caadiga ah ku wada laakiin waxaa ilaabaysaa inaad tahay gabar muslimada ya laba mid iskuma heli kartid mar walba inaad noqoto gabar muslimada iyo inaad diido xadgudubka inta badan diiniga ah oo ninka kaaga imaanaya horta waa inaad saa barataa markaa ka masayraysid ninkaan naa kale inuu kula guursado aayad qur'aan aad diidanta marka aad dareemaysid ninku inuu kaa jeestay oo uu gabadha kale kaa doorsaday adiga ayaa waxaan ku baraarugsanayn wuxuu inay diinta nooc ka mid a tahay saa daraaddeed guryuhu badanaa waxay la burburaan gabdhaha oo aan u adkaysan karin diiniyan waxa diin ahaan loogu sharaxayo ma garat dalmar miyaa qofka kor saaran daaran qaldanayn marka badanaa gabdhuhu waxaa weeye ma dareemaan mushkiladaasu inay tahay mushkilad diineed laakiin waxay u moodaan inay tahay xadgudub iska caadiya oo ninku kugu samayn because caqliga caadiga aan aqbali karin ayaga caqliga adeegsanayaan waxay u xisaabtami lahaayeen sida qofka caadiga oo u xisaabtamo laakiin diintu qaabkaa inay u xisaabtamo ma ogola qaabkaas inay gabadhu u xisaabtanto ma ogola okay waxaan aayadda ay noo sheegta ku xigtahay ayna tiri sida soo socota aayaddu waxayna leedahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa aayaddaanaa ka sii daran waxay leedahay waryaada raggiyo cadaalad inaad ku samaysaan dumarka dhexdooda ma dhacayso lan ma dhici doonto walow xarastum xitaa haddaad dadaashaan ma dhacayso xabada halkaa maxaa loogu jooji waaye maxaa loo raaci waaye marka saa daraaddeed ha samaynina guur ka badan hal war miyaysan saa ku qumanayn bal caqligiina adeegsada waxaa lagu leeya ilaahay baa nala hadlaya wuxuuna leeyahay sida soo socota waryaada raggiyow dumar badan oo isla guursataan marna cadaalad kama dhex keeni kartaan war xitaa waa haddaad isku daydaan inaad dadaashaan ma taqaanaan sababtay arrintan u timid sababtay tahay haddii sidaan qofka qur'aanka qoray uusan u hadlin isaga laftirkiisa danihiisii meeshay ka baxayaan isagii hadda dul taaganta isagii iyo sawday maraysaa hadda iyo caaisha inuusan cadaalad samayn karin ayuu rabaa dadka inuu sheego shuf laakiin muxuu leeyahay sida aan sawdo ku sameeyey oo kale ugu yaraan sameeya muxuu leeyahay falaa tamiiluu ha ka teginina oo ha u iilanina kullal mayli iilasho oo dhan caaishaha wada aadinina mujeedaa oo fatadaruuha aad ka tagtaan waa sawde kalmucallaqa sida mid meel suran yacni ninna ma haysato nin la'aanna ma ah waraa laga warhayo ma garat odayaasha soomaaliyeed baa dhaqankaas lahaa jiray bakooradinta qoorta soo saartaan yaa reer uusan 5 beri iyo 4 beri ka warhaynin inta kubdhe maarata su soo socdo warsee leeyahay sidii ajnabiga inuu yimid xalama la soo aruuray ma la fiican yahay reerku waa sidee haddana bartiisii kusii laabana hooyo naxariis badan hadday tahay xoogaa yar intuu shushubto uu bartiisii meeshuu ka yimid uu ku guriga noqonaya ma garat marka wuxuu leeyahay falaa tadaruuha kalmucallaqa bal uunka war haya seed ku baraysay ha la soo yidhaahda shuf waxa walbooda aaminsantihiin baan idinku dhaariyey ma ilaahay waa saa u hadli kara waxa walbooda aaminsantihiin ayaan idinku dhaariye ma ilaahay caadilka ah ee koonkaan oo dhan sameeyey miyaa saa u hadli kara miyaa xadgudubka noocaasa sharciyeyn kara insaan iyo dabeecadihiisa iyo dulmiga uu u dhashay iyo danaha iyo masaalixdiisa sida uu jecel yahay qofka insaanka inuu u difaacdo miyo balka waran marka loo sii sharciyeynaayo oo loogu kaba ilinayo cadaalad isagoon samayn karin oo naxariis lahayn
oo akhlaaq xuma ku dhacday oo uu leeyahay gabadha xeerjaja beena la gal ya marka loogu sii kaba ilinaayo oo la leeyahay oryaa hooy ninow war cadaalad kuma hayn kartid labada anaaba keeni le anoo rasuulkii ilaahay ah dee xadiisaa soo arooray ilaahayow ma qaybi karo qalbigayga xadiis saxiixa wey qalbigayga anigu ilaahu ma qaybin karo yani qalbigayga hal dhinacuu jiraa shuf markaan wuxuu leeyahay mataqaanaad insaan ana hadihi xaqiiqada runta waa taas ma garat may fahmaysaan yani wuxuu leeyahay sida hadda anagu aan runta in loo sheega rabno ayuu runta u sheegayaa wuxuu leeyahay qalbigayga ma qaybin karo dhinacuu jiraa annagu marka waxaan leenahay qalbigu maadaama saa uu yahay qalbigu hal qof ayuu ku fiican yahay maxaa loo waalaya qalbigaaga ma qaybin kartid dee xubintaada taranka hala tashan qalbiga iyo maskaxda iyo maanka la tasho haddii kale ee tiraahda kacsigaan isticmaalaya iyo shahwadayda hadda naagtii kaasoo horboodaba iska aadde tii kuu timaado ku tiraa waa isu kaa hibeeye tii ku tiraa addoonaahay tii ku tiraahda waxba kaama rabo tii ku tiraa cirkaa la iga kaa mahriye tii ku tiraa dhulkaa la iga kaa mahriye tii la boodbood marka dee caaisha waxay noqonaysaa inay tiraahdo rabbigaa dee hawadaadu kuu rabaa inuu meelaa u socotay meelaa ka socoto ma aqaan saq dhexe guriga markuu ka baxo way dabageli jirta caaisha jag xaggee u socotaa xaggee cabsi walwal nafteedii dhammaa ma degana waxay isleedahay xitaa waysan aamini karin gogosheeda caawa uu kula jiifo iyo habeenkeedaas bal eeg fiiri annaga waa anigii idin idhi moogtaa shakhsiyadda nebi maxamed ee laydinka qariyey yacni fiiri bal ka waran gabar caadi ah oo ninkeedii ay isla deganaayeen oo nolosha ka dhexaysay markuu albaabka furaba soo kacee oo u haysata inuu naa kala aadaayo bal ka waran bal qofkaas albaabka markuu furaba loo soo istaaga hadduu nebi maxamed yahay ka waran miyuusan marka nebi maxamed qofka laguu sheegaa ma ahay qof kala ahayn caaisha waxay leedahay waan ka daba dhaqaaqay waa markaasaan biligta ka daba meesha usa markuu soo laabtana wuu igaraacay tiri halkaasuu ugu dhuftay tiri calooshaa ma garatay asagoo dhahaya jibriila ii kaa sheegay inaa iga hari diiday idiblaaya ma garatay shuf waa xadiis awjactanii yaa rasuul allah waa i xanuujisay tiri halkaas buggaa ku dhuftay ma garatay بالمناسبة كدرسو قصدي كلي عانك أهيد يا أيها النبي لما تحرمي أكسود قوتي متكلي أو قريجي هبين كيدي في رسالة النبي قال له مني لا أي هذه رأينا عند الإنسان قريجي أيو شوقا مركاسو هبينكي يا مالنتي وقريجان قبضان لتشوقي لها أيو متكلي قريجي سريرتي لصيحدة سريرتي دي كسل هذا محاكو قاضي أو واحد أخرينيس soo ma aada dhin waa idin qaybinaya habeenada iyo maalinta oo naag walba guri ayay leedahay war miyaana isku ogeyn waa maxay wax ka socdaa sariirtayda ka waran waxaa yaa rasuulullaahi tiri afi yawmi ma maalintaydii baa waxaan samaysay tiri yaa wa fii bayti ma gurigaygii baa ku samaynaysaa bay tiri waxaan wa calaa sariiri ma sariirtaydii baad naag kale la jiiftaa riyada waa muuqaalada laydinka qariya ee shakhsiyadda nebi maxamed ee qur'aanku ka hadlayo qur'aankaa ka hadlaya magarad bal ka waran nin ay xaaskiisii ku qabatay gurigii inta alaabta suuqa aaday oo soo adeegatay markay guriga soo laabatay isagoo gurigeedii naag kale la joogo ay ugu timid ka waran xalaal iyo xaaraan waxay doontaa noqotee maxay u arkaysaa waraa waxaa si caadiya ayaa muruur alkiraam oradaa lagu maraa because shaqsigii dul istaagi lahaa ma dul istaagaayo muruur alkiraam oroduu ku maraya hadhow waxaa lagu leeya nabigii caayinaya nabigii alla aflagaadeeye nabigii baa la caayay war ma naga caynayna mase sheekadaa caay ah waryaa ma sheekadaa caay ah mise anaa nabi maxamed caynaya aniga nebi maxamed waxaan idin idhi ma aqaano aniga sheekada meesha taalla un baan ka hadlaya war anugu caay baan u aqaanaa nin weyn oo xaaskiisii aysan aamini karin sariirta suuliga inuu aaday ay ula mid tahay naag kale inuu raadsaday war aniga caay bay agteeda ka tahay
ee ay caaw dhan wadna kurkur fug markuu albaabka furaba ay ka daba dhaqaajinayso war qof noocaasa oon laysku halay karin war anigu khayr albashariya bini aadamka inuu yahay kii ugu khayrka badnaa aniga laygama dhaadhicin karo laygama dhaadhicinayo mid kaloo albaabka ku oynaysa oo leh heedhe maxaa keenay sariirtayda naa kale inaad la seexato war aniga meeshan waxaa iga muuqata insaan shahwaaniya oon isxakamay karin ayaa ii muuqda qof aan isxakamay karin oo miyi ka qaba oo waalan oo meeshuu joogaba ku dul dhacaaya baa ii muuqda war waxaa ii muuqda qof aan akhlaaq lahayn baa ii muuqda oo aan xaaskiisii inuu galmo iyo kula jooga maahan insaaniyad kale aan aqoonin oo jidadka ay ku oynayso oo ku leedahay haddaa ay nacdo orodoo qaada habeenkii iyo maalintii meeshaa doonta kala dhac war biil kaama rabe meeshaa rabtay ila aad war waxba kaama rabo ha i furin uun kama bixi karo guur iyo waxay tiri yaa rasuulallah maali raqba fi rijaal yaa rasuulallah ani nin ma rabo aniga hadda kabacdi nin iyo guurkiis kama bixi karo ma garatay waxaa jira xaalado moogtahay gabdhuhu soo gaaraan oo markay carruur haysato marka yacni inay maanta dhan socoto nin kale haddana oo mashaakil la kulanto oo ilmo kale gedisan keento oo isku dhibaato yacni qof dumaroo waxaa jira nolosha aan rabin qaraarkeeday rabtaa sibir hadday ka qaraar tahay inay halkaas taagnaatay ka jeclaan lahayd inay maanta dhan guur gasho waana waxa inta badan gabdhuhu carruurta u wadwataan fiiri mataqaanaa sababta nimanku naagaha badan u guursanayaan sababtay tahay waxay ogyihiin dulumkoodu meel maaragtay yani saacidaysa oo waa maxay waa ruuxan dumarka ee mas-uuliyadda gurigii dhammaa uu ka saaran yahay ruuxa dumarkaa siiba gabdhaha soomaalida mas-uuliyada guriga ka saaran ninku waa khayru mas-uul marka la fiiriyo shareecada islaamka ma fahamti waa bahal maaragta muxuu ahaa si maadi ah u fakera gabadhuna si ruuxi ay u fakertaa ma garan kartaa intaas ninku si maadiya u fakeraa maadi mataqaanaan inuu galmo sameeyo inuu lacag dhiibo bes ku fakeraa gabadha dhan wuxuu u arkaa wax asaga u yaalla oo suu raba kaga yeelo insaaniyaddeeda ma fiiriyo shucuurteeda iyo dareenkeeda ma fiirinayo waa garaacaya waa dilaya ee adeec kaalay ayadoo jirin uu leeyahay soo soco markaasay leedaha war caawa xaaladdeeda caadi maaha lacanad malaa'igtiyaa ku bilaabaysa waa maadi dareenkiisa oo dhan axaadiistu waxay sheegaysaa gabar canugeedii dhintay cunugeedii oo mayda ayaa dhintay ma garat meesha heerkii ay diinta islaamku gaarsiisay fiiri cunugeedii oo maydaha guriga dhex yaalla yaa dhalay ninkaanaa dhalay markaasi waxay ka baqaya inay u sheegto isaga waxaa u muuqda galmo inuu sameeyo ayaa u muuqda iyaduna waxay ilaalinay qalbigiisa inuu naxo oo maaragta muxuu isku dhex yaaco markuu ogaado maydka meesha yaalla qalbigiisa ilaaline ma garatay yani shuuf waxaa kaloo arkayseen midkay maalmahan isku haysaysteen waa daciif iyo waa saxiix iyo waa xasan iyo waa kida oo maaragta muxuu ahaa ninkii lalahaa gabadhii aabaheed dhintay iska dowdowlo iska imaana galmuu la samaynaya ma garat qalbigiisa ilaaliyaa laleeyahay shuuf qalbigiisa ilaali ha ka bixi meesha macnawiyaadka dhanaa maarata lagala dagaalaya marka ayada laakiin see u fakeraysaa ruuxa dumarkaa iyadu waxay ku fakeraysaa ma jirto waxaan kale dana kale male ayada oon gurigan ka ahayn dana kale male saas daraaddeed tanaasulka markay samaynay oo sibirka qaraar laqayso guriga inay badbaadisay rabtaa ninkan laakiin dan ka male naa kaluu rabaa carruur kaluu rabaa inuu abuuro jawi kaluu rabaa inuu galo waa maadi hadba meel cusub uu raadinayaa laakiin ma raadinayo gurigan ilaali carruurtaada ilaali ma raadinayo ma faham akhlaaqda diinta ninka ka dishay magarata insaaniyadda waxaa fahmaysaa marka aad diinta islaamka aragto say tahay maalintaasay kuu bilaabanaysaa waxay u moodaan in akhlaaq darro dadku ku dhacaan qiyam iyo sharaf iyo karaamo waxaan dareennay oon shucuur iyo ishelnay maalintaan fahmnay qofku inuu yahay qofku lamida aa la joogtid ee uusan ahayn waxaa rabtid waxa qof aa ka samaysan kartid tii labaad oo qalbiga ka dilaya tii saddexaad oo qalbiga ka dilaya tii afraad oo qalbiga ka dilaya dan kama leh xilliguu doonuu furaa siduu doonuu ka yeelaa ma garatay rasuulkii alleeyaha looga daysado ma garatay hadhow wuxuu ku leeyay nabigu garoobada hadduu yahay ahaan lahaa nin waxa weeye naagaha iska jecel oo naagaha iska raadsada bikro unbuu guursan lahaa
yaa idinku yidhi waxaa mataqaanaa sababta uu nabigu loo sheego badanaa inuusan bikro rabin horta bikro waa isku dayey laakiin sababta uu gabdhaha garoobada u raadi jiray leesh isagaa wuxuu yidhi mataqaanaan xadiis laga warinayo si fiican dhegeysta tazawajuu guursaduu dhah raggiyo alwuluud alwuduud naagta wax dhasha guursada naagta wax dhasha guursada waa su-aal la isweydiiye marka waxbaba ma dhaline seen ku ogaana inay wax dhalayso saasay dadku isweydiiyaan mogta markaasaa dib waxaa loogu celiyaa muxuu ahaa ayaydeed iyo habarteed iyo ayaa wax dhali jiray maya tafsiir kalaa jira tafsiirka waa maxay tafsiirka naagta iyadu wax dhasho leesh liannahu kaana yabxathu can walad isagaa raadinayo wiil marka naagta wax dhashuu raadinaya naagta laftirkeedu wax dhalaysa isagaa rabayba inuu ku dhex darsado marka mushkiladdu isagay ka imaanaysa yani fiiri mushkiladdu isagay ka imaanaysa waayo hadduu gabdho un bikraa guursado cilmi iyo dhakhtar la geeyana aysan jirin dhag tan guurso nag wuu ku sari weynaa tan kala guurso wuu ku sari weynaa tan kala guurso wuu ku sari weynaa tan guurso ilaa markii dambe uu yidhi sidii inuu xafiis fadhiyo uu yidhi war ma maqlaysaan naag walba waxaa u bannaan inay ii timaado oo ay isu kay dhiibto muxuu raadinaa intaas gabar kasta inuu baroweeyo bal inay ur u qaadi kartay in kale saa daraaddeed shiicadu waxay aaminsan yihin faadimo bes uu dhalay nebi maxamed khadiija bintu khuwaylad wiilasha waana sax marka tafsiirka ugu saxsan wey taariikhya marka dib loo fiiriyo khadiija bintu khuwaylad uma aysan u dhalin ilmaha kale tirada badan isaga faadimay u dhashay saasaa la yidhaahdaa leesh leanna adii laftarkaagaan ku weydiinaa faadimo yaa ku baray maxaa inta kale u bara weyse isagaa ku baray isagaa ku baray dib ugu laabo maxaa u bara weysa dadka kale gabdhaha iyo wiilasha nabiga uu dhalay ee la yidhahdo wuu dhalay hebel maxaa u bara weyse maxaa loo buunbuuni waaye isku aabbiyo hooy ahaayeene yaa maxaa loo buunbuuni waaye liannahu adiga hal madhab oo islaamiyaha ku soo gaaray oo la dhaho madhabka sunniga tafsiirkiis kan kale ayaa kaa saxsan markaa fiiriso xitaa kan kale waxaa laga dareema waxaa weeye isku dhaca iyo say isugu dhacsanaayeen cali iyo cumar iyo marka la fiiriyo iyo cumar oo guursanaya gabadha cali iyo waxaad dareemi kartaa yacni inaysan ahayn in macnaha meelaha ay ka imaanayaan asal ahaan in la fahmayo yani waxaad dareemaysaa inaysan ka imaanaynin caruurta ee ii sheeg caruurtii nabigu uu dhalay inaysan ka imaanaynin yani waayo gabadha muxuu ahaa waxaa dhalay muxuu ahaa ii sheeg ha yani waxaan ka wadaa faraca gabadha uu guursanayo cumar yaa macnaha waxaa la leeyahay asal ahaan haya kasoo jeedaa marka inaysan caruurta nabiga kasoo jeedin ee caruurta khadiijo ay ahayd ayaad dareemaysaa farac ahaan marka la fiiriyo waa tafsiirka saxda a fahmi kartid moogta tafsiirka saxda aad fahmi kartid wey waay loo boonboonina faadima zahra abaay faadimoy aad markasta maqashaan marka nebi maxamed mushkiladiisu waxay ahayd caruuruu raadinaya saa daraaddeed markii ay arkeen nimanka iyaga waxay dhihi jireen abtaraatay dhihi jireen maxamed cid waxaaga wadi doonta male fikradaaduna way dabar go'aysaa dood noocaasa ayuu maaragta muxuu ahaa ayuu wajihi jiray waa ka aad u carooday inaa acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa labtar markuu waaye ilmana ka quustay tiisiina soo dhowaatay cali bin abi taalibaa dad ugu dhowaa cali bin abi taalib oo gacanta soo qabtay man kuntu mawlaahu facaliyun mawlaahu lah aniga qofkii aniga i rabaa oo aniga i doonayaa cali bin abi taalib ha soo dabagalo taladii cali baa la wareegaya garat marka sababta nebi maxamed ugu mashquulsanaa gabdhaha garooba jacayl iyo naxariis ma ahayne waxay ahayd inuu raadinayay gabdho caruur dhala oo dabadeedna uu rajo ka qabay inuu isagu ka dhexel caruur ma garate laakiin maclasaf waa waaye waana sababta loogu wareero guurkiisa faraha badan xitaa ma xadidnayn lama yaqaan ilaa hadda cid taqaanay male nebiga guurkiisa imisuu ahaa maxaa u bannaanaa maxaa ka xalaala yani ma yaqaanaan afartan maarata qur-aanku sheego isagu shuqul kuma lahayn ma garate
ilaa 9 ugu yaraa intaa noloshiisa ee soo gashay 30 waa la gaarsiiyaa ka badan waa la gaarsiiyaa ma xadidnayn runtii ma aysan xadidnayn marka waxaan rabaa inaan iraahdo marka aayaddu waxay leedahay walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa cadaalad kuma samayn kartaan dumarka dhexdooda walow xarastum aad badadaashaane falaa tamiiluu kula almayli marka waa shaqful daloolin baa la yidhaahdaa shaqful daloolin maaqaan soomaaliga sana taqaanaan in kale shaqful daloolin bimacnaa waxa inta soo gal yani waa shaqful daloolin shuf waxa weeye qofkii oo aad tiri qaladkaas ma xali kartid yaa qaladkii gelini adaaba gelinaaba meeshii ay ahayd maadaama allah aad tahay aadna ka taqaanid ninkan dabeecadiisa iyo dhaqamadiisa tirina cadaalad ma samayn kartid waxay ahayd inaad tiraad jooji marka guurka tirada badan laakiin hadda waxaa leeyahay hoy soo gal meeshaan inta soo gal falaa tamiilu kula almayli un bas kula almayli shuf marka maxaa la ogolyaha mataqaanaan bacd almayl dareemi kartaan falaa tamiilu kula almayli maxaa la ogol yahay bacd almayl oo bacd almayl marka cadaalad daro soo maahan bal shuf bal eeg waxaa noocaas bacd almayl 70% inuu ninku eexdo oo naagta kale u eexdaa loo ogol yahay war bal diintan caqli xumada lagu dhisaan la yaabay war haddaadnaan ku doodaynin eeg maalin walba waxay ku leeyihin markay guurka tirada badan sharaxayaan waxay leeyihiin ninka waxaa looga baahan yahay cadaalad ayaa looga baahan yahay war waxaan iyo qur-aanka ma akhrinayaa miya war qur-aanku isaga laftirkiisa wuxuu ku leeyahay cadaalad ma samayn kartid tusaale ahaan cadaaladii jacaylkii cadaalad uma samayn kartid qaybtii iyo qismadii cadaalad uma samayn kartid jiifkii cadaalad uma samayn kartid noloshii maxaa cadaalad samayn kartaa ma adaa 4 qofooda wayaab war 4 qofood oo kula mid aha isu keentay 4 qofood 4 qofooday rabaan ilbriqsi kasta waxa aad raadinay maxay taa waxa marka aad si cadaalad u samayn kartaa laa yumkin idan marka quraanku wuxuu ku leeyahay waa ogahay cadaaladaas ma keeni kartaane 70% hadaa dhinac u go'do xogaa soo hambee kullal mayli markaas leeyahay tadaruha kal mu'allaqa sida bahaas muxuu ahaa meel mid ka laalaada oo aan yani dhinacna ka dhiginina xogaa yar 25% boqolkiiba 10 u soo laabo bal seetahay ugu soo laabo inta eebay ku tahay ruux dumar inay tiraahdo feministanima la dagaalaya feminista waxaan ahay gabar muslimada feminista ma ogoli waxa noocaas kala waa ceeb iska dhageyso aragtidaas si kastoo kuula qaraarta iska dhageyso ani fiiri meehi inaan sharaxa inaan leeyahay fikradaha diinta islaamka soo horjeedo dhan waa sax maaha laakiin waa iska dhageystaa ayagoo qaraar iska dhageystaa fikradaha qaarkood sababtu taqaanaa dee fikradda kale ayadaba way qaraartahay fikrad kaloo qaraar ayaa miiska taalla marka haddii maaragta muxuu ahaa ugu yaraan midaan qaraar ay gabadhu mas-uul ka too dooratay ya dee mid lagu cadaabay oo lagu dhibaateeyey maxaa anigu u difaacaya ilaa aniga laftirkayga mogta caqligayga inaan isticmaalaan rabaa waan arkaa mararka qaarkood dumar ay la tagto oo laftirkoodu si tadarruf iyo mintidnimo ah barnaamijka u jila okay laakiin yaa wata iyagaa wata waxooda khalaas iyagaa wata ha la saxnaad ama ha la khaldanaato iyagaa wata soo maa laakiin tan ugu yaraan waa lagu gumaystaa oo waa lagu dhibaateeyaa oo waa mid aysan mas-uulka ahayn marka iyadu waxay ku nafisayso hadday dooratay fal khiyaaru laha iyadaas kale khiyaar iyadaas kale aniga ma u dooraayo mogta laakiin mushkiladdu waxaa waay keliya inaan farta ku fiiqno oo nidhaahno waxani xal ma aha haddii la doonaayo maxaa xal ah nala weydiinayana inkaaraa qabtaana qaarkiin ma dhegaystaan marka aan jawaabayna maanta dha waxay ku leeyihin waxa aad sharaxay aaminsan tahay noo sharax waxa aad aaminsantihiin noo sharaxa maxaa waxayna ugu dhegan tihiin marka aan sharaxayna ma dhegaystaan inkaaday qaban dadkaan mogta waxa weye waa isdhegoleysiinaya hadhow waa imaana aduu waxa xal maxaa haysaa aduu uu ku leeyahy hadda ma dhegaysan kartaan fur dhegtaada dhulkaygana ka saar iyo suufka baasud ku gurto iska saar xal ma aha 4 naagood xal ma aha 3 naagood xal ma aha 2 naagood xal ma aha laa 4 ninna xal ma aha walaa 2 ninna xal ma aha walaa 3 ninna xal ma aha xalku waxa weeye sida insaanku u quruxda badan ee ay isla fahmaan oo akhlaaqda bulshadu waa afgarad akhlaaqda waxa la yiraahdaa waa afgarad bulsho dadka samaysta sida ugu quruxda badan een aragnaa waxa weeye nin iyo naag bas khalaas labadaas qofood inay noloshooda wataan isla maareeyaan sidaas ku qurux badanta haddii qof saddexaad yimaado qofkaas saddexaad xoolo ma aha nin ayuu noqonaa ama naaguu noqonaa dheelistirkii wuu dhumay khalaas bas intaas caqligu noo sheegaya
أنت اللي حكوا لي حقيقة كانتي وح حمينا يعني فيري مشكلة ده قفك مسلم كاوحاوي وحو أجيا وحي سوينا يسان عقل يا أخلاق يا عدالة aysan ku salaysnayn maadaama taas uu og yahay iyo wuxuu qaadanaa go'aan la yidhaahdo qofka kale wixiisa xumee markaasuu maanta wuxuu kaa daba leeyahay adiga yaa akhlaaqdeed ku xalishay caqligeed ku xalishay adiga maxaa maaragtay diintee haysa maanta wuu kaa daba qaylinaya warniga iga daba qaylin fikradeedu waa fikradeedu basiida waa kuu sheegay niyo gebgeblaa ma garatay saxarada iyo waxa aad ku dhex jirto haddaada maaragtay lagaa dhex saari karina baraafuunka uguma shubayno ma garatay ya waxaagu inay xun yihiin diintaadaa kuu sheegaysa walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walaw xarastum tawaqaf istaag waryaa diintaadaa kuu sheegaysa maxay ku leedahay cadaalad kuma samaynaysid muxuu ahaa waxa yani si kasta u dadaashaan cadaalad kuma samaynaysid idan marka maadaama ay diintiisaa kuu sheegayso tawaqaf ya nadil tawaqaf marka may fahmaysaan توقف يا نذل توقف يا نذل وردلي او كاستاك سحرده كدحبح عدنا برافونك وما شويس وسقد iyo qashinka ku dhex jirta ka bax qof insaan baa leedahay faynus amal iyadoo meel ka lulata ha ka tagin دليه نحن نتحدث عن انسان قف بني ادم قف انسان كهلينا قف إنسان بان كهلينا نصرخ ونصيح وروحان محي وقف إنسان بان كهلينا فينوس ميل ولا تكما هلينا وروحان وإنا فهمتان وردينت إيقابك أي أشهر هليسو روح دمرك وهليسو هدانا نكبحن قداسة دلمي قدود كلام استاجناي ورقريان وحي أبربريان وروحا داد كان لبسانيان وروحان أخلاق حمادة كل السن هدانا أنو كشقينين يا محوها وحوي حال ملي وإنا فهمتان لبعضدن إيه مشكلة قريها نبربورينيسا ورجعي لآنت إيه نحريس لآنت قريها نبربورينيسا يا وحوي مارتي وربالويدي يا بالويدين بل حتى عيالك أضول عياراي ويدي أنا واحد تجارا كقاضا مرك غاركود عنق ير أيام ويديا ما دريماي عنق هدا وشيك عنق كلا إنا هذا شيء إنه عنق لا شيء أكاد ليس مدريماي وحو هايستا إنا وشرح يسد أو وشيء يسد بخل إنا وشيء كينش وعنق يركع يقولوا كل شيء هدا ترى عنق ير أو كل هذا شيء أياجرا أو حافظ كل جوجا هدا كتر هذه وحو دريما إنا وشيء كينيسد بخل نحدن ودنها دما دلاعاي نحدن ودنها دما قرحيه انقرت عنقاس مدري ما انه يحيى qof caadi oo la dhashay انقرت because عنقا kula dhashay oo rasmiga عنق wuxuu dareemayaa عنق hooyadiisa bisan dhashay kaasuu dareemaya waxaan leenahay عفى الله عما سلف ما يعني رحنا ومن عاد فينتقم الله مقدرا وروحي hore ka gudba gurguriyina badbaadsada oo noloshiina u soo laabta oo ha ku daysanina qof isagu akhlaaq aan lahayn faqad kaan lakum fi rasuulillah uswatun hasana weyn uswada asheegaysan waa dulmi iyo xadgudub iyo cadaalad darro aaway waxa ka hadlaysaan waa ina fahamtaan shakhsiyatu muhammad wajiga kale waa ina fahamtaan wajiga kale oo uleeya waa ina fahamtaan wajiga gabood falka war eeg war quraanka ka hadlaya fiiri inta tiradii ka bateen oo gabdhihii tiradii ka bateen xaasaskiisa oo baahidii ka badatay oo xuquuqdoodii dayacay yaa muxuu sameeyay matqaanaa ma garanaysaa wuxuu sameeyay ay sameeyeen mutaharaadkii ma maqasheen boga laaban ee ay sameeyeen gabdhaha xaasaskii nabiga mutaharaadkii boga laabnaa ma maqasheen weligeen mutaharaadkii boga laaban iyo baahida ma maqasheen way soo kaceen soo dhoobteen oo nabiga u yimaadeen oo banaanbax sameeyeen ee waxay yiraahdeen wallahi inaan san ku wada joogeen ma u adkaysan karno ilaahay baa na xusabay leedahay ilaahay baa doortaa leedahay anaga insaana nahay meesha adaana dhoobay waajibkeena gudo
بالقرآن كسو آخرية قل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وجوابه هدا ربطان حولو iyo hanti aad doonaysaan oo aadnaan si kala rabin wax kala aadnaan rabin yaa waxa weeye kaalaya furiina aan siinayaa war adiga miyaan dhihin ninku inuu xaaskiisa biilo waa shay waajiba maxaa furiin keenay war xaqi aan lahayn wey gabadhii galma ka qaylisa wuxuu leeyahay hooy haddaa iga dareentay inaan kaa jeestay oon midda kale kaa raacay ka tanaasul xaqaaga hadday biil tiraa isiina wuxuu leeyahay furiin ma rabtaa war insaanka noocaana muxuu ahaa وريا أنا وحن كبرينا شخصية النبي محمد لقاعد قرية من جديد كوي كبرينا شوف وقبر بيل كده عطسنة ورهدي قبر هذا ما أنت مسلمة دي هنين كده كتير هذا نيو قبر إلى جورستي أو قبر كلا إلى جورستي أو قبر كلا إلى جورستي أنا بيل الآن أيانا هاي ورإسي نيو بيل كي إلهي شريعة الإسلام كأيتري نينكا كلها إسي هدي أو كتير هذا gabadhii kalena ay u tira saddexdoodii isu yimaadaan oo waxaa nolol nooma ah waa rafaadnay ninkan isagaa naag walba ka dhaadhiciyey inuu mas-uuliyaddeeda qaadi karo maantana waana kanaa ninkan aan iskala hadalno oo fadhiga u fadhiistaan iyagoo 3 ama 4 oo dabadeedna ninkii lasoo fadhiisiyo oo la yidhaha waryaa adigu mana soo guursatay mid walba goonideeda ma ugu sharaxda mas-uuliyaddeeda inaad qaadi kartid war duruufta noocaana kuma adkaysan karno kuma sabri karnee nala hadal noloshayna wax ka bedel adaa mas-uuliyaddan qaatee hadduu ku yidhaahdo ka waran haddaad xoole iyo adduunyo doon aad tihiin furiin u diyaar garooba war ma erey saxaba waa ereyga qur-aanku ku leeyahay waa ereyga qur-aanku ku leeyahay gabadha masaakiinta ee xafsa markay leedahay ma gurigaygiiba ma gogashaydiiba ma habeenkaygiiba waxa qaladkan aa igu samayne way adkayso waysa markaas caaisha u tagtay naa caaisha na waxaana igu dhacay markaasuu wuxuu leeyahay sirteydii maxaa u fashishay naayaa sirtay warkii adiga aan kugula hadlay iyo sheekadii aniga adigana dhex martay way aad ugu sheegtay caaisha naayaa markaasuu qur'aan ka soo dejinaya oo afjigaya uu leeyahay labadiinaan fara kulul ayaa wallaahi aan macnaha labadiinaan tallaaba idinka qaadaya saqad quluubukuma labadiinaan mujeedaa diintii waa ka tagteen uu leeyahay bal eeg diintii dhammeeda wuxuu u adeegsaday qaala ibnu cabbaas zaaqad quluubukuma waa gaalowdeen u fasire xabso iyo caaishow labadiinaan gaalaa noqoteen سادراد الشيعة وآيات داس وحكي قاتين لواداس قال إليه ليش فقد سقط قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ورياء بالفرس الله عندك بنات مساكين تا إلهي يا رسولك يا ملائكتي يا مؤمنين يا جبريل أيا قرب كي قتاقنوا ليه لبدينان إلهي انت صنع وأديك سنة يا أبو ليه ومحا قبلها لو أديكسنا وحلو أديكسنا أو كلية حقوق دودي بس إنك شاكستن ولا لي أخلاق حمد أنا لا يقول رقمي قول شيء دي بس أنا لقول سمي أنت بس من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إلهي أيابا معناه وحوي وحكو سمينا يا قبليه وتشاتشوصا شوف إلهي مقال كي سفير ورمر كان لنا ماشي إلهي كما دح الله إله هي مدي دنين إنكار إنكو دعده وحن دي دنهي إله جار ساسي كودها هايين